Asalaamu calaykum asxaabta halkan waa Saciid Madaale Sports waxaad kusoo dhawaataan falanqaynta kulanka u dhexeeya Mexico iyo Portugal ee caawa la ciyaari doona saqda dhexe ama sagaalka habeenimo ama caawa 9 saac. Portugal oo aan lahayn Cristiano Ronaldo ayaa tijaabin doonta awoodeeda marka ay la ciyaareyso Mexico oo ka mid ah martigeliyaasha koobka adduunka 2026. Kulan saaxiibtinimo oo Axadda ay la ciyaari doonaan kooxda ama xulka kubadda cagta ee Portugal. Kulankan wuxuu calaamad u yahay furitaanka rasmiga ah ee garoonka caanka ah ee Estadio Banorte oo hore loo oran jiray Estadio Azteca ee magaalada Mexico City kadib ku dhawaad 2 sano oo dib habeyn ballaaran lagu sameeyay si loogu diyaariyo koobka adduunka. Mar walba waxaa jira xiiso ku xiran kulamada Portugal marka xiddiga 5 jeer ku guuleystay Ballon d'Or-ka ee Cristiano Ronaldo oo sidoo kale gooldhaliyaha ugu sarreeya ee taariikhda xulka kubadda cagta ee lagu magacaabo Portugal uu ciyaarayo, balse weeraryahanka halyeyga ah kama qayb qaadan doono kulanka caawa Axadda ama caawa saqda dhexe ee la ciyaari doono sababtoo ah dhaawac la xiriira muruqa oo kasoo gaaray kooxda Al Nassr. 41 jirkaan ayaa maalin kasta sii fiicnaanaya isagoo ku jira soo kabasho gaar ah, laakiin maqnaanshihiisa ayaa sababtay jahwareer dhinaca tigidhada ah ka hor safarka Portugal ee Mexico, iyadoo la rumeysan yahay in qabanqaabiyeyaasha ay la tacaalayaan iibinta kuraasta qiimahoodu yahay qiyaastii 100, halka markii hore tigidhada lagu iibinayay in ka badan 500 markii Ronaldo la filayay inuu ciyaaro. Ronaldo ayaa dhaliyay 5 gool 5 kulan oo ah isagoo caawiyay Portugal inay si toos ah uga soo baxdo koobka adduunka xagaagan, iyadoo kooxda Roberto Martinez ay ku dhameystay kaalinta koowaad ee Group F iyagoo helay 13 dhibcood, 4 guul, 1 barbaro iyo sidoo kale 1 guuldaro, kana sarreeya xulka Republic of Ireland, Hungary iyo sidoo kale xulka Armenia. Portugal oo kaalinta 6aad kaga jirta qiimeynta FIFA isla markaana loo arko musharax xooggan oo hanan kara koobka adduunka xagaagan ayaa si wanaagsan u ciyaartay iyadoo aan Ronaldo ku jirin kulankoodii ugu dambeeyay ee Zagreb markaas oo ay 9 gool iyo gool ku xasuuqeen Armenia magaalada Porto bartamihii bishii November, iyadoo Bruno Fernandes iyo Joao Neves ay min 3 gool ka dhaliyeen. Selecto das Quanos ayaa kaliya laga adkaaday 2 ka mid ah 16 kulan ee ugu dambeysay ee caalami ah 20 bilood ee lasoo dhaafay. Muddadaas oo ay ku guuleysteen UEFA National League markii labaad bishii June 2025, sidoo kale weligood lagama badin 5 kulan ee horay ay u la soo ciyaareen Mexico. Mexico waxay sharaf u yeelan doontaa inay furto koobka adduunka 2026 ee caasimadeeda 11 Juun, iyadoo garoonka Estadio Banorte oo si rasmi ah loogu magacaabi doono Mexico City Stadium inta uu tartanka socdo uu noqon doono garoonka ugu horeeya ee martigeliya 3 kulan furitaan koob adduun kadib 1970 ilaa 1986, iyagoo wadada martigeliyaasha tartanka xagaagan Mareykanka iyo Canada. Mexico kama qayb galin Zagreb, sidaas darteedna ma aysan ciyaarin kulamo rasmi ah tan iyo markii ay ka adkaadeen USA si ay ugu guuleystaan CONCACAF Gold Cup bishii July 2025. Tan iyo guushaas 2-1 Mexico waxay ciyaartay 9 kulan saaxiibtinimo ah oo ay la yeesheen dalal kala yimid 4 qaaradood. Kooxda Javier Aguirre kuma aysan guuleysan 6 kulan ee ugu horeysay, 4 barbaro, 2 guuldaro, gaar ahaan markii 4-0 looga adkaaday Colombia, balse waxay guuleysteen 3 kulan ee ugu dambeysay ay la ciyaareen Panama, Bolivia iyo sidoo kale Iceland. Sanadkan gudihiisa guulo xiriir ah 1-0 oo ay ka gaareen Panama iyo Bolivia bishii January ayaa waxay xigay guul 4-0 oo ay ka gaareen Iceland dhamaadka Febraayo. Waxay kaliya halkii kulan ay lumiyeen 5 kulan ee ugu dambeysay ay la yeesheen xulal Yurub tan iyo koobka adduunka 2022, 2 guul, 2 barbaro. Si kastaba ha ahaatee, Mexico waxay ku dhibaatoonaysaa kulamada hore ee ay la ciyaartay Portugal. Waxay lumiyeen 3 ka mid ah 4 kulan ee ugu dambeysay, 1 barbaro. Ugu dambeyntiina waxaa 2-1 looga badiyay waqti dheer ah tartanka FIFA Confederation Cup bishii July 2017. Qaabka Mexico dhammaan tartamada haddaan fiirino 5 kulan ee ugu dambeysay 2 ka mid ah draw ayay galeen, 1 ka mid ah waa laga adkaaday, 3 ka midna way badiyeen. Portugalna
lixdii kulan ee lasoo dhaafay 3 ka mid ah way guuleysteen, hal barbara ay galeen, hal way loos gareeyeen, 4 ka midna way guuleysteen. Wararka kooxaha xulka Mexico kuma jiro Edson Alvarez, Manuel Ruiz iyo sidoo kale 17 jirka Gilberto Mora oo dhammaantood ka ciyaara khadka dhexe finalkii Gold Cup sanadkii hore. Hirving Lozano iyo Julian Araujo sidoo kale waa maqan yihiin. Si kastaba, goolhayaha khibradda leh ee Mexico Guillermo Ochoa oo 40 jir ah ayaa dib ugu soo laabtay xulka markii ugu horeysay tan iyo May 2025. Waxaan rajeyneynaa inuu saameyn weyn sameeyo maadaama uu doonayo inuu ka qayb galo koobka adduunka lixaad oo xiriir ah xagaagan. Ciyaaryahanka khadka dhexe ee ku dhashay Spain Alvaro Fidelga oo bishii February ka tagay Club America kuna biiray Real Betis ayaa diyaar u ah inuu sameeyo kulankiisii ugu horeysay isagoo 38 jir ah kadib markii ugu horeysay loo yeeray, halka Raul Jimenez, Jesus Gallardo iyo sidoo kale Oriol Pineda ay sidoo kale u tartamayaan inay ku soo bilowdaan. Dhanka kale, Portugal Ronaldo waxaa ka maqan sidoo kale goolhayaha koowaad Diego Costa, weeraryahanka AC Milan Rafael Leao iyo da'yarka Rodrigo Moro, halka Bernardo Silva, Ruben Dias iyo sidoo kale João Palhinha laga reebay sabab la xiriirta xaalad jireed 5 sano kadib markii uu helay 3 kulan oo u saftay Portugal. Weeraryahanka 33 jirka Palhinha oo u ciyaara kooxda Toluca ee Mexico ayaa dib loogu yeeray xulka, waxaana la filayaa inuu kula tartamo Gonzalo Ramos iyo sidoo kale Gonzalo Guedes boosaska weerarka dhexe. Pedro Neto iyo João Felix ayaa laga yaabaa inay ku taageeraan weerarka dhinacyada. Ciyaaryahanka West Ham Matheus Fernandes ayaa laga yaabaa inuu sameeyo kulankiisii ugu horeysay ee xulka kadib markii ugu horeysay loo yeeray, halka Bruno Fernandes, Vitinha, João Neves iyo sidoo kale Ruben Neves ay yihiin musharaxiinta ugu waaweyn ee ka ciyaari kara khadka dhexe. Safafka suurtagalnimada Mexico waxaa suurtagal ah Rangel, Ledesma, Montes, Vasquez, Gallardo, Gutierrez, Fidelga, Pineda, Alvarado, Jimenez iyo sidoo kale Vega. Portugalna waxaa suurtagal ah Cancelo, Silva, Ineco, Mendes, João Neves, Ruben Neves, Bruno Fernandes, sidoo kale Pedro Neto, Gonzalo Ramos iyo João Felix. Saadaasha ugu badan weli lama hubo in si sax ah labada kooxood ay u safan doonaan, laakiin Portugal ayaa warqad ahaan leh koox xoog badan xitaa iyadoo Ronaldo uusan joogin. Kooxda Martinez ayaa loo arkaa kuwa ugu cadcad. Mexico lama dhaleelsan karo marka ay ku ciyaarayaan garoonkooda caanka ah, laakiin waxaan aaminsanahay in martida Portugal ay guul ciriiri ka soo qaadan doonto Mexico, taasoona ah tirada 2-gool ay Portugal ku adkaanayso. Saadaasha ugu weyn ay wargeysyada ugu waaweyn ka saadaalinayaan waa saaxiib yaal, mahadsantihiin. Ha ilowin subscribe saarto, like dhahdo, fiidiyoga aadna share gareyso. Waad mahadsantahay.